الله الرحمن الرحيم سلام waxaad ku soo dhawaataa casharkan ku saabsan sida loo qoro dhibaatada cilmi baarista magacaygu waa Professor Samawade Maxamed Cali waxaan ka dhigaa jaamacadda Badweynta Hindiya maadada lagu diyaarinayo buugga qalin jebinta waxaad ku baran doontaa casharkan sidii aad u qori lahayd dhibaato cilmi baaris oo xiiso gelisa akhristaha buuggaaga qalin jebinta ama cilmi baaristaada kana dhigta buuggaaga qalin jebinta ama cilmi baaristaada mid ka muuqata kuwa ardayda kale dhibaatada cilmi baarista waxay si cad u sharaxdaa aqoonta maqan ama wax yar laga ogyahay knowledge gapku waa aqoon wax yar laga ogyahay ama maqan oo ku salaysan mawduucaas aad wax ka qoraysid dhibaatada cilmi baarista waxa ay si cad u sharaxdaa hadafka aad rabtid in gaartid cilmi baaristan ama hab raaca aad isticmaali doontid oo aad ku xallin doontid problemka ay cilmi baaristaada marka hore baan soo sheegnay cilmi baaris kasto waxay xal u tahay problem jira dhibaatada cilmi baarista waxa ay sharaxdaa ama ay falanqeysaa dhibabka iman kara oo kuwa muuqda iyo kuwa aan muuqan isugu jira oo soo wajihi kara cilmi baaristaada inta aad wadid sameynta cilmi baaristaas marka aad sameynaysid dhibaatada cilmi baarista aad qoraysid muhiim waaye inaad ka hadashid dhibabka muuqda iyo kuwa aan muuqan oo cilmi baaristaada soo wajihi karo inta aad wadid stepka koowaad oo marka aad qoraysid dhibaatada cilmi baarista waa inaad qortaa waxa uu aragtidaada tahay ku saabsan problemkan sidii loo xalin lahaa waxa ugu horeeyo in aad go'aansatid waxa ay tahay in la sameeyo yacni waxyaabaha u baahan in aad sameysid si ama ay kugu suurto gasho ama problemkan xal u heshid in aad marka hore listigareysid waxaasan sameyn doonaa waxaas inaan tilaabooyinkaas qaato waxyaabahaas soo gala in la fahmi karo visionkaaga waxa uu visionkaaga ama aragtidaada inay noqoto wax la fahmi karo oo san noqon wax lagu confuse garanayo marka muhiim waaye in akhristaha uu fahmo visionkaaga iyo aragtidaada waxa ay tahay iyo sida aad isleedahay problemka waa lagu xallin karaa haddii problemka aad xalka u raadinaysid faa'iidadiisa iyo waxa galayo isku qalmin muhiim ma aha in cilmi baaristaas la sameeyo waqti dhumis waaye waxyaabo kale oo ka muhiimsan baa cilmi baaris lagu sameyn karaa marka waxaa muhiim ah faa'iidada in aad ku nuxnuxsatid oo akhristaha uu fahmo in muhiim ay tahay in aad sameysid cilmi baaristan faa'iidadaasna ay ugu jirto bulshada ama cidda cilmi baarista loo sameynayo tilaabada labaad waxa waaye in aad qortid issue statement ama bayaan ka hadlaya arrimaha taagan bayaankaas arrimaha taagan aad ku qoraysid waa in uu sharxaa problemka guud oo jira oo cilmi baaristaada ku saleysan tahay iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada ama dadka in aad problemkaas xallisid ama akhristahaba okay isbuucan waxaan kusoo gabagabeynaynaa qaybta koowaad sida loo qoro dhibaatada cilmi baarista qaybta labaad oo dhibaatada cilmi baarista waxay ka koobnaan doontaa laba qaybood qaybta labaad insha Allah isbuuca dambe ayaan soo gudbin doonaa ilaahay hadduu yiraahdo haddii cilmiga oo dhanba hal wax looma wada arkay qof walba ra'yi buu leeyahay laakiin muhiimka waxa waaye in aad ra'yigaaga ama fikirkaaga aad ka geeri kartid qof aad
isku maskaxtiin isku caqlitiin isku si wax u aragtaan ama ka badan bas waxaad ugu aragtay ka badan oo arko laakiin aad markaas uu waxa adiga qortay uu fiirinayo uu dhigi karo qofka micnuu sameynaya macquul waaye wax suurtagal ah waaye marka insha Allah waxaan noo balana isbuuca dambe iyo qaybta labaad ee dhibaatada cilmi baarista waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh